إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. xaflad ballaaran ay soo qaban qaabiyeen madrasada Albayaan ee barashada diinta Islaamka ee ku taala magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxaa xifdinta Quraanka Kariimka ah ka qalin jabiyay Zakariya Bashiir Cabdullaahi oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku dhashay dalkani Koonfur Afrika waana ardaygii saddexaad ee ka qalin jabiyay sanadkan gudihiisa. munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay qaar kamid ah culimadiinka Soomaaliyeed iyo macallimiinta madrasada Albayaan ee ardaygani uu ka qalin jabiyay iyo marti sharaf kale waxaanay ku dheeraadeen sida ardayda kale loogu dadaali lahaa in ay bartaan Quraanka Kariimka ah. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa tuuyiday khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. darajada ugu sareysa khalqiga oo dhan lagu sareysiyay ee la yiri bini aadamka ugu khayrka badan waa qofkaas isaga ah oo adduunyada ay saas tahay. adduunyada waxa la yiri qofkiina ugu khayrka badan waa ninka Quraanka bartay ee bara. mar haddii waqti ka baxayo mar haddaad waalid tahay oo aad juhdi bixinayso oo dhaqaale bixinayso oo carruurtaada inta aad la daba taagan tahay wax kastoo baahidooda ah ama aad arday tahay wax baranayso in aadan ku qancin natiijo ka sokaysa in juhudi aad bixisay ujeedadii aad ka lahayd ee ah miro wanaagsan inaad hesho inaadan ku qancin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز المحترم لدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، مرحبا بك أخي العزيز، وكيف أنت؟ madrasada Albayaan waa madrasadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo laga furo dalkani Koonfur Afrika waxaana la aasaasay 1 bishii 7 ee sanadka 1997. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.